السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan akhrin rabnaa qoraalkii kusoo qortay Cayuuni baraheeda bulshada. fadlan channelka hadaad ku cusub tahay subscribe saar. qoraalkeeda waxa ay ku bilowday assalaamu calaykum. ugu horeyn ilaah ayaa mahad leh, waa cidda kaliya ah ee mudan mahadnaqa xilliga farxadda iyo xilliga murugadaba. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid walba oo ay garab istaagtay. qoraalkan waxa idinku soo qoray inaan runta idin cadeeyo. videoga aniga igu saabsan ee meelaha la wareejinayay, horta ani waxa aan ahay cid maanta iga bedeli karto ma jirto oo ilaahay ahayn. laakiin videogan waxa uu ahaa sanad iyo bar ka hor. waxaa jiray wiil aan wada soconay oo maleynayo qof rag ah oo qiimo leh, laakiin Alle ayaa og cid waliba waxa ay tahay iyo waxa uu qarsoon. marka aan muddo wada soconay ayaa waxa aan go'aansaday inaan ka haro. kadib muddo ayuu idaba socday oo waxa uu raadinayay in uu soo celiyo xiriirkeennii. markii uu ka quustay ayuu maalin maalmaha ka mid ah ii soo diray videogan. waxa uu damcay inuu si qasab ah xiriirkeennii ku soo celiyo. anigana waxa aan ka fikiray in aan waddadaas sii qaado iyo inaan iraahdo waxaa doonta samee, waayo qofka maalin ayuu dhashaa maalinna uu dhintay. anigoo dambi qarinayo, haddaan dambiyaalo kala sameeyo oo nolosheeda ka hor imaanayso, waxaan ka doorbiday inuu dambiga hal mar igu dhaco. maanta waxa uu awoodiyay uu sameeyay, laakiin aniga ma niyad jabin, maxaa yeelay waxaan ahay iyo anigaba Allah og. cabsi iyo cizina asagaa iga mudan oo ah inaan u wada laabano. laakiin waxa ila qaldanaatay inaan dambiyo kale sii galo aniga oo ka fikirayo in uu muuqaalkaas faafo. ugu dambeyn, codsi waxaa jira warar been abuur ah oo dad magacayga ku qortay iyo dad kaleba isku dhex wadaan, kuwaasoo dad aan dambi lahayn sawiradooda meelaha soo dhigayo. balse waxa aan rabaa inaan idin cadeeyo, wararkaas waa been abuur. mana jecli in qof beri ka ah laga faafiyo arrintaas, laakiin arrinta qusayso waxa aan ku sameyn lahaa ninka arrintaas suubiyay. waxa aan rabaa inaan ugu dambeeyo familigayga, laakiin waxaa si qadarin leh idinka codsanayaa inaad joojisaan arrintaas.